السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن دمان داوديال halkaad inaga daawanaysaan waa SomTR TV kusoo dhawaada warkeena toddobaadlaha warka waxa idin la socodsiin doona anigoo Jaabir Saciid Saalixi qodobadeena warka ugu door korona waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu baarlamaanka hortagayo 9 bisha Janaayo maamulka Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka wada tashiga ee ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Galmudug Mudane Cali Ciid ayaa xarunta madaxtooyada Galmudug ka daafuray shatiga gaadiidka Galmudug daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadeennii warka ugu door corona haatanna ku soo dhawaada isagiyo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu baarlamaanka hortagayo 9 bisha Janaayo si uu halkaasi u geeyo waxqabadkiisa xukuumadda tan iyo markii la magacaabay xafiiska warkani waxay noo faahfaahinayso Fatima Cabdiraxmaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu baarlamaanka hortagi doono 9 bishan si uu halkaas u geeyo waxqabadka xukuumaddiisa tan iyo markii xilkan loo magacaabay qoraal goordhaweyd laga akhriyay telefishinka qaranka ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu baarlamaanka horgeynayo warbixinta guud ee dalka bismillaahir rahmaanir rahiim war ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo nuqul kamid ah uu soo gaaray telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho 1 February 2021 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu taasiis tiiraaya leh u dirayaa shacabkii xalay waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkii Hotel Afrique waxa uu ahaa weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ee Birmageedada ah cadawgu waa ay sii daciifayaan taagdaradooda ayaana sabab u ah weeraradan qusta ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in xukuumadda oo 3 bilood jirsatay ay waxqabadkooda 100 maalmood ka jeedin doonto golaha baarlamaanka talaadada 9 bisha Febraayo 2021 ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay feejignaadaan cadawga gudaha iyo kan dibadda isku meelna ay uga soo wadeen ra'iisul wasaare Roble ayaa xilka haya muddo 4 bilood ah kadib markii xilkan loo magacaabay bishii September dabayaaqadeedii sanadkii hore xilliga uu ra'iisul wasaaruhu xukuumaddiisa horgeynayo baarlamaanka waa maalin kadib xilligii loo qorsheeyay in ay dhacdo doorashada madaxweynaha warar ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu baarlamaanka ka dalbanayo muddo kordhin cayiman si ay xukuumaddiisa uga shaqeyso hirgelinta doorashada madaxweyne Farmaajo oo bishii February 8 ee sanadkii 2017 xilka madaxtinimada loo doortay ayaa sidii madaxweynayaashii ka horeeyay ku guuldareysanay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waa tahay taasi waxay ahayd Fatima Cabdiraxmaan inoo faahfaahineysay qodobka maamulka Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka wada tashiga ee ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug marka laga soo waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha horumarinta iyo shaqooyinka ay ka qabteen deegaankan Jubbaland oo ugu horeyso shaqooyinka ay qabatay WFP oo dekedda ay ku jirto WHO iyo UNHCR iyo FAO oo arrimaha kalluumaysiga ah inaan kulligood ay ka wada hadleen iyaga iyo hay'adaha kale ee dawladdu waxa muhiimka ahaa ee hay'adahaas dawladdu ay ka wada hadlayeen iyo waxa hay'adaha UN ka qabteen Jubbaland guud ahaan gaar ahaan sektarada ay hay'adahaasi ka kooban yihiin waxa kale oo yeelanay kulan gaar ah safiirka oo aanu kaga wada hadlaynay arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda waxaan isla qaadanay Soomaaliya inay u baahan tahay xal siyaasi inay gaadho waxaan isla qaadanay Soomaaliya in wada hadal lagu dhameeyo waxyaalaha taagtaagan waxaan isla aragnay inay muhiim tahay siyaasiyiintu inay ku heshiiyaan arrinta doorashada dhacaysa ayna soo dhaweynay labada dhinacba shirka Dhuusamareeb la isugu tagayo berri inuu noqdo mid miradhala dadkuna ay ka tashadaan waxaan isla qaadanay inay u baahan tahay in la ixtiraamo heshiiskii 17 September uuna yahay xalku in isaga korkiisa lagu shaqeeyo waxaan aad uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo madaxda Soomaaliduna ay qaadato hoggaanka ay leedahay waxaan kala hadalay waan maashtoorka isla aad uga hadalay oo annagu ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaado la fuliyo
soomaaliyana ayna maanta u baahnayn in dib u noqoto, soomaaliya ayna maanta u baahnayn dagaal sokeeye, loona baahan yahay mas-uuliyiinta soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda hortaallaa sida ay tahay. waxaan aada ugala hadalay in niyad wanaagsan la muujiyo, niyaddaa wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo wax walba wanaagga laga raaco. waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala, goobjoogayaal badanna ay jiri doonaan, lanana socon doono. waxaan ka shaqaynaynaa ay tahay waddanka inay doorasho dhacdo, xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo wakti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay. taa markaa waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag, isagana uu noqdo waxaan ku dul shaqaynay heshiiskii Sebtembar 17 aanan rajaynayo in shirkaas natiijo fiican ay ka soo bixi doonto. international community iyo safiirka Swana ay korjoogtana ka noqon doonaan, lana socon doonaan processkaas iyo wadahadalkaasi sida uu jiro. waxaan rabaa inaan ku darsado shirka la isugu tagayahay, waxaan isku haynaa heshiis ahaan waan gaadhnay Sebtembar 17 laakiin waxaa hadda hadalku uu ka jiraay technically fulintii heshiiskaas oo aan markii horena ku talinay madaxda dowladdu iyo musharaxiintu inay processka ka dhex baxaan oo technically loo daayo guddiyada shaqada ay leeyihiinoo qof kastoo musharaxa uu banaanka ka joogo processka uuna faragelinna ku samaynin. waxaan rajaynayaa soo noqodka dambe ee laamahan aan isu soo noqonada inaan iyagoo sidan si ka bedelan oo horey looga gudbay aan isugu iman doona haddii la haydho. waan ka hadalnay arrinta gobolka Gedo, dagaalada ka dhacay inaan loo baahnayn, caqabada taalla, laakiin qof waliba mas-uuliyadda intuu ku leeyahay uu ka qaadi doona. haddaan Jubbaland nahayna waanu sheegnay waxa aan kala kulannay iyo dhibaatadan haysata iyo dadka banaanka jooga iyo mushkiladdu marba intay leegtahay. markaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid ayaa xarunta madaxtooyada Galmudug ka daafuray shatiyada gaadiidka Galmudug. warkani faahfaahintiisa waxay noo hayo wariyaheena Cabdijaliil Cusmaan Samow. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid ayaa xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug ku daafuray shatiyada gaadiidka dhulka ee maamulka Galmudug. barnaamijka daahfurka waxaa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano maamulka caasimadda Galmudug, iskaashatada gaadiidka Galmudug iyo waliba rugta ganacsiga ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Galmudug ayaa soo bandhigtay buugga iyo taargada cusub ee gaadiidka dhulka Galmudug iyo sharciyada gaadiidka dhulka ee maamulkaasi Galmudug. munaasabadda oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ka dhacday madaxtooyada maamulka Galmudug ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka gaadiidka Galmudug Cabdirasaaq Dhiblaawe, isagoona faahfaahin ka bixiyay qorshaha wasaaradda ee barnaamijkan cusub. maamul kasta wuxuu leeyahay astaan lagu aqoonsado oo ugu horeyso taargo. maantana bulshada reer Galmudug waxaan u diyaarinay taargo Galmudug ay isku aqoonsadaan. amniga haddaan ka fiirino, amniga isigana wuxuu u baahan yahay ahmiyad gaara. haddii gaari kasta oo Galmudug jooga uu qaato taargo, waxaa suuragelaysa in qofkaas qaatay taargada oo laga haayo macluumaad haddii loo baahdane la dabageli karo ayadoo lagu ilaalinayo amniga. ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray oo halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid, isagoona sheegay in wixii hadda ka dambeeyay gaadiidka Galmudug ay isticmaali doonaan taarigada cusub ee maamulka. aad soo diyaariseen oo runaantii aad u qurux badan iyo hawlaha aad ka qabateen baa idinkaga mahadcelinayaa. waxaan idinka filaynaa ilaahay hadduu yiraahdo bilaha soo socda in dhismihii garoonka caasimadda Dhuusamareeb la bilaabo ilaahay hadduu yiraahdo. ugu dambeyn waxaan leeyahay caawa waa habeen guuleed, taarikada iyo shatiyada kala duwanna way noo daafuran yihiin.
bulshada caasimadda muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirka wadatashiga ee dhowaan ka furmayo magaalada dhuusamareeb. sidaan la socdo shirkaas waxaa ilaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaan waajib saaranay ahayd inuu dadka markii dalka xaaladdan kula maraya inuu iskugu yeero. waxaan ka rajeynayaa shirkaasi inay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dan ugu jirto. waxaan ka rajeynaynaa inay ka soo bixi doonaan go'aamo doorasho loo dhan yahay lagu wada qaadan doono. waxaan aaminsanahay inay mataqaanaa sheegay mid reerayna oo hogaami doono madaxweyne oo ummadda Soomaaliyeed walaaca iyo walwalkaysta maarta dhinaca uga saarta. sidaas daraaddeed waxaan rajeynaynaa in waxa la isku hayo waa wax uun Soomaali ka dhaxeeya. waxa Soomaali ka dhaxeeyana Soomaaliya dawlad ay leedahay, dawladaha xubnaha ka ahna dawladdaas in bay hoos yimaadaan. marka waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala in laga fiiriyo dhanka wanaagga oo aan laga fiirin dhinaca xumaanta. dadka Soomaaliyeedna uga soo baxda wax rajo geliya, guul geliya, dawladnimadana xoojiya, dalkana hore u mariya aan ka rajeynaynaa. runaantii waa wax loo baahan yahay in la wada hadlo si ay u xalismaan caqabadaha ka taagan arrimaha doorashooyinka. dowladda federaalka xubnaha ka iyo dowladda federaalkana waa waajib saaran in shacbiga loo turo oo laga wada hadlo arrimaha masiiriga. waxaan qabaa haddii la isla garto aynu doorasho galana waa xal, haddii la isla garto aynu waqti soo helana waa xal. laakiin waxaa muhiim ah inaan meeshaas waxa shacbiga Soomaaliyeed karaarisa ku noqda ka soo bixin oo wax macnaale ka soo baxaan oo shacbigu ay u arkaan inay tahay wax dantooda ah oo mas'uuliyadda dadkii mas'uuliyadda hayay waajibka saaray guteen. muhiimadda koowaad waxaa le mar walba waxaa le in shacbiga loo turo. dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ana sidaan la socono dowladda federaalka waxay joogtaa caasimadda, dowladaha xubnaha ka ah jooga gobolada. iyaga laftigooduna in arrimaha ay danaynayaan la qiimeeyo waa laga maarmaan oo dowladda lafteedu wax badan ka tanaasusho, ayaguna inay wax badan ka tanaasulaan oo dowladda iyo shacbiga labadaba u turaan waa loo baahan yahay si aan soo u dhicin conflict issue siyaasadda ku saabsan. waxaan qabaa inay tahay arrin u baahnayd waqtigeedina timi u baahnayd in laga wada hadlo. waxaan ku tali lahay macnaha in tanaasul la sameeyo. muddo 30 sano aan burbur ku jirnay, dhibaato fara badan ayaan soo marnay. haddeertaan markii diile iyo maaragtay nolol aan hiigsanayna ayaa maaragtay isqabsi siyaasadeed fara badan dalka dhacay. siyaasiyiinta iyo maaragtay mucaaradka iyo dawladda waxaan u baaqi lahay in la isku tanaasulo, shacabka loo turo. dad badan oo masaakiin maaragtay qutulyonka magaalada Karaas ayaa jiro, dad badan oo xoogsata ayaa waddan ku nool, gobollada dhibaato badan ayaa ka jirto. magaalada caasimadda dhibaato badan ayaa ka taagan. marka waxaan codsan lahay in dhibaatada dalka ka jirto in tanaasulaad badan la sameeyo oo maaragtay aan qof walba qofka kale maaragtay aysan noqon ijiid aan ku jiido gacmo daalis. weli waxaan ka rajeynayaa insha Allah inay ka soo baxaan guul aad u weyn. ilaahayna ka rajeynaynaa insha Allah shacabka Soomaaliyeedna dabcan dib waa soo arkay, laakiin weli waxaan u dhiman inaan nabadii aan aragnaan u dhiman. insha Allah waxaan rajaydoonaa in guul iyo gobonimo ay ka soo baxdo. waa tahay daawadayaal, haatan waxaan soo gaarnay qodobkeenii dibadda. wafdi ballaaran oo ka socda hay'adda WHO oo baaraya asalka COVID-19 ayaa gaaray xarunta xakamaynta cudurrada gobolka Hubei ee Wuhan. wafdigii WHO ee baaraya asalka COVID-19 ayaa gaaray xarunta xakamaynta cudurka gobolka Hubei ee Wuhan si loo baaro asalka nooca cusub ee coronavirus COVID-19. hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo baaritaanka ka wada Wuhan ayaa booqatay xarunta xakamaynta cudurka ee gobolka Hubei. wafdiga WHO ayaa booqday xarunta xakamaynta cudurka gobolka Hubei maalintii afraad ee daraasadda cilmiga ee Wuhan. wafdiga waxay kormeerkooda ka sameeyeen xarunta ka hortagga cudurka iyadoo la raacayo tallaabooyinka adag ee la xiriira COVID-19. wafdiga WHO ayaa markii ugu horeysay tegay Shiinaha bilowgii bishii Janaayo, balse wafdigaasi ayaa soo laabtay kadib markii maamulka Beijing uu sheegay in aan la helin fiisooyin sax ah. kadib wafdi khubaro iyo cilmi baarayaal ayaa ka kala yimid USA, Australia, German, Japan, England, Russia, Netherlands, Qatar iyo Vietnam ayaa soo gaaray 14kii Janaayo iyaga oo wata diyaarad qaas ah. wafdiga oo go'doomin ku jiray 14 maalmood markii ay magaalada yimaadeen ayaa xog isweydaarsaday saraakiisha Shiinaha intii ay socdeen kulamada qadka tooska ah. wafdiga ayaa markii ugu horeysay booqday suuqa cuntada badda kadib markii ay baareen Hubei Chinese and Western Medicine Integrated Hospital,
isbitaalka daraasadda lagu sameeyey waxaa markii ugu horreysay lagu wargeliyey cudurka covid-19 kadib markii uu wargeliyey hay-adda caafimaadka ee WHO in cudurka neefsashada ee daahsoon ee asalka aan la aqoon ay ka soo baxeen magaalada Wuhan ee gobolka Hubei bishii December 2019. cudurka waxaa markii ugu horreysay lagu arkay dad booqday suuqa cuntada badda lagu iibiyey ee Wuhan. bukaankii ugu horreeyay waxaa la dhigay isbitaalka 17 November iyadoo laga cabanayo jirro neefsasho ah oo aan la ogeyn sababta keentay. waxaa la fahansanaa in cudurka sababa caabuqa sanbabada uu ka dhasho nooc coronavirus ah oo aan horey loo aqoon, kaasi oo la saadaalinaya in uu yahay coronavirus isku bedelay oo laga helo fidmeerta. Shiinaha ayaa horey u diiday codsigii maamulka Mareykanka ee ahaa in la bilaabo baaritaan ku saabsan asalka coronavirus, waxaana lagu soo rogay xayiraad dhoofitaanka dalka kadib markii ay dowladda Australia ay ku baaqday in baaritaan caalami ah lagu sameeyo. waa tahay daawadayaal halkaad inaga daawanayseen waa SomTR TV. intaa waxay nagaga dhan warkeenii toddobaadlaha ahaa. warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Jaabir Saciid Saalixi. waxaa warka isku soo dabariday Cabdijaliil Cusmaan Samow. intaan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.